big love. Nikisema big love, runtii dadka Soomaaliyeed aad ayay ii taageersan yihiin. taas waxa micnaheedu uu yahay in ay jecel yihiin shaqada aanu hayno. Facebook and YouTube of Somalis problem. Basadir, whiskey, Basadir, police. No. The video of the whiskey is video 1 month ago. Understand? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي الإسلامي سود وهذا وسحبكين ما أنا وهذا لا سكسون قدونا أكسني مقالك العصوب. سود وهذا وحوي سيدا تملك مقالك عوان كيس باك سواركتين وحو مقالك نكسب سنية هاي بسدير. سيدا لو سعتين بورتو بسدير ودن كوا إمادي مقدشوا شو كو خبصدي وحوي شو جيس وودعي سينا بند وودعي وحوي مجالس وكباش على شو جيس حتى واداوتين مقالك ميدا وكوانا وحوي شو في عنو خبصدي وشو الهلين المعنى وموزين تلا دارو سان إسكال ده هاي sababta ugu maado Soomaaliya showgaas ay ahayd ween waagaagtay okay waxaa jira dad badan oo Basadir dhaliilay oo dhahay ninkan uma qalmay inuu Soomaaliya la keeno uma qalmay in dadka la soo dhaxgeliyo macnaha uma qalmay in ninkan oo kale lagu casuumo Soomaaliya oo waxyaabo badan dadka ay ku dhaliilayeen oo qamro cabeex soo kalaab ku jiro oo muuqaal laga soo duubaa jira dad dhaayeen way jiraan dadka qaarna waxa waay Basadir in Soomaaliya oo imaado way taageersanayeen marka ugu dambeyn waxa waay hadirtan waqtigii oo ka tagay Soomaaliya la gaaray inkastoo dadka qaar ay leeyihiin waa la ceeriyay oo Soomaaliya waa laga ceeriyay oo qasab uga baxay wadanka waxa jira waraysi oo siiyay Universal TV aan daawan doono farxan diraan sidoo kale waraysi gaar ah oo Universal TV siiyay marka hadda waxaan daawan doonaa muuqaalka Basadir oo siiyay interviewga ama waraysiga Universal TV Basadir waraysigan ayuu siiyay TV-ga Universal. ni mara yangu ya kwanza kuja Somali na waa markii koobaad oo aan imaado Soomaaliya waxaan ku bartay Soomaaliya taageerada ayna siiyeen dadka Soomaaliyeed waxaan bartay Soomaalida markii farxaan uu bilaabay in muuqaaladeena uu turjumo marka anagu aan Sawaaxili ku sameeyno ayuu asagu turjumaa marka sidaas ayaan isku baranay intaas kadibna waxaan taageerayaal badan ku yeelanay gudaha Soomaaliya waxa ay soo wacay farxaan waxaana uu igu yiri imaw Soomaaliya aniga ayaana sidaas codsaday intaas kadib waxaan isugu yeeray asxaabtayda oo ay ku jiraan idil iyo astur oo aan u sheegay inaan baxayo waxa uu qorshuhu ahaa inaan isa soo raacno dhammaanteen balse aniga ayaa iri marka hore aniga ayaa Soomaaliya soo arkaya أنا عليا بنا متقنا كليه waxa imaad hadda Basadir kaliya Soomaaliya imaaday hadii idil iyo astur ay soo raaci lahaayeen maxal sameyn la macna dadka hadda dhaliilay Basadir nin macna wanaagsan ama nin Soomaaliya la keeno qalmo ma aan dhahayo hadii idil iyo astur loo keenin lahayn maxal sameyn lahaayeen waxa su'aasha adiga kaliya niideena committee ku soo qoran waan arkay Soomaaliya runtii waa dal iyo dad fiican waxaan Tanzania kula laaban doonaa wanaagii aan ka bartay dadka Soomaaliyeed anigoo u sheegi doona dhammaan dadka reer Tanzania sida Soomaalidu ay u fiican yihiin waxaan ku soo laaban doonaa Soomaaliya anigoo ay la socdaan idil iyo astur iyo dhammaan asxaabtaydo hadda wuxuu dhahoyaa Soomaalida waa dad wanaagsan Soomaaliya wanaaga kala kulma oo sheegi doona Tanzania markii aan tago waxay ka hor muuqaalkan laba muuqaal ka hor waxa yaala janaalka farxaan diraac muuqaal hal daqiiqo konton sekin amal soconayo oo asiga afkiisa ku dhahayo Soomaalida maxaa ka qaldan Soomaalida YouTuberadooda baahi waayo waxaas uu ku dhahayo Facebook and YouTube of Somalis problem. Basadir marna wuxuu dhahaa Soomaalida waa meel wanaagsan oo u soo xiisi doono Basadir idil astur keeni doono u soo laaban doono marna wuxuu dhahaa macnaha Soomaalida waa baahan yihiin dad baahan waa dad loo imaan kara maahan YouTuberska marka Basadir waxa waay mar walba si uu hadla oo dhan kiukweli watu wa Somali wana big love nikisema big love runtii dadka Soomaaliyeed aad ayay ii taageersan yihiin taas waxa micnaheedu uu yahay in ay jecel yihiin shaqada aanu hayno oo aad ay ugu faraxsan yihiin waxaana ay si weyn igu soo dhaweeyeen wadankooda waxaan dhihi lahaa waxaan samayn doonaa riwaayado badan annaga oo isku duuban sidaas ayaana dhammaanteen noo ballana inta jecel riwaayadaha ama dadka ka qosliya tujiunge tuwe kitu hiki alafu mimi nimetoa nafasi tufanye video
nimewacha sababu waxaan uga soo tagay idil iyo astur hal sabab oo ayagu waa gabdho ma aha niman sidayda oo kale anigu waxaan ahay nin meel kasta mari kara laakiin waxaan rabay marka hore waa sax horta marka si loo fiiriyo wadan adii aadan hore u tagin maxallaha waxa uu yahay ma ogaan kartid marka sida darteed dumarna mar walba waxa ka howl karsan rag marka sida darteed waa ka soo tagay in marka uu dhahayo sabab kale marka loo fiiriyo xataa farxaan diracna uu dhahayo dadkaas marka muuqaal xataa aniga ay soo duubayaan xijaabta dhaha macnaha garbasaar dharka Soomaalida lagu yaqaan ama dirac waxaas u xir kadib muuqaalaha soo duubana dhaha marka inta markay imaanayaan dharkaas inay xirtaan ku qasbin haduu u sheego uu ku qasban yahay inuu sheego sababtoo ah asigii hadirtaan sidaan looga soo horjeestay kuwaas hadoo keeno way ka sii darleen baash ma aha niman sidayda oo kale anigu waxaan ahay nin meel kasta mari kara laakiin waxaan rabay marka hore in anigu aan soo arka Soomaaliya sida ay tahay haddana waan arkay waa meel fiican runtii Soomaalidu aad ayay noo jecel yihiin aad ayay noo taageeraan meel kasta waan booqday markii aan halkan ka laabto oo Tanzania aan ku laabto waxaan waa sheekayn doonaa Tanzaniyaanka wanaaga Soomaalida maxaa wanaag sheekeynay saaxiib anaka ma isku dheeleyno shalay baduubaysa oo muuqaal ku dhaysay Soomaalida dad maxaa ka qaldan Soomaalida dad wanaagsan ma ahan maxaa ka qaldan baahimiya Soomaalida adina afkaaga shalay ku dhaysay Swahili ku duubaysa haddana maanta ma Soomaalida ma hadana ka sii waalay macnaa marka aan meelaha marayo gudaha magaalada Muqdisho waxay Soomaalidu weydiiyaan meeda idil iyo astur laakiin marka aan dalkayga ku laabto idil iyo astur waxaan u sheegi doonaa in Soomaaliya ay tahay meel fiican waana isla imaan doonaa marka dambe annagoo waxaan ku qaban doonaa halkaas shaqooyin badan sidoo kale inta aan halkaas ku suganahay Tanzania waxaan soo sameyn doonaa muuqaalo ku saabsan Soomaaliya kuwaas oo arkayna insha Allah waxa soo sameeyo ku sugeynaa leesahay umepigwa nyimbo ya Alikiba I am Basadir comedy aniga Basadir ahaan waxaan ahay shaatiroole haddii aan shaqo ka helo Soomaaliya waan joogayaa haddii kambaniyadu ay shaqo siiyaan Basadir shaqa laga sii Soomaaliya caadi u dago Soomaaliya ha barto dadkan oo wax ka sheegayaan hawaaya asiga afkiisaas ka kicnay macnaha qofkii kale yeesan ka hor istaagin macnaha okay waa shaqo waa siina saaxib laakiin basadaan waa iska daday hadii kala qoraxa baaba ka dhigayso waxaan diyaar u ahay inaan joogo Soomaaliya oo aan ka shaqaysto waayo shaqadu waa muhiim dal kastana waan ka shaqaysanayaa hadii aan shaqo ka helo hiyo kufanya kazi ndani ya nchi ya watu ni baraka Faranda alianza kufanya translated YouTube ayaan iska baranay Farxaan waxa uu turjumaa muuqaaladeena anagu aan Sawaaxiliga ku sameeyno Farxaan aad ayaa looga yaqaan Tanzania kahor inta anigu aan ogaanin dad ayaa ii sheegay markii koobaad oo igu yiri waa maxay muuqaalada aad samaysaan oo Soomaaliga handana lagu sameeyo markaas ayaan baaray YouTube-ka waan ka arkay kadibna waxaan xiriir la sameeyay Farxaan fiican oo ganacsigeenu aad ayuu u kobciyaa asiweza kuongelea sasa tukaelewana tukawa fresh good na cha kwanza fani zangu wa Somali wote nitawaahidi waxaan rabaa inaan ugu dambeyn doo taageerayaashayda Soomaaliyeed aniga idil iyo astur waxaana siisan taageero weyn Allah idin barakeeyo Allah idin siiyo amaan waan idin imaan doonaa mar kale Soomaaliya hadii uu Allah idin aniga idil tan kale macnaha oo meesha taala waxay tahay Basadir horta waa nin muslim ah sida dadka qaar ay dhahayeen gaal waaye ama Christian waaye horta sida caadiga waa muslim normal la asaa sheegay muuqaal hore markuu duubayo oo xanaaqsanayn wuxuu dhahay saligeyga waa kana saligeyga waa isku xir saligeyga waa kana hadda masjidka ka imaaday Soomaalida faraha iga qaadan qamrada muuqaalka ay cabayaan wuxuu ahay laba bilood ka hor I'm going to masjid, I'm going to masjid because the video of the whiskey is video 1 month ago, understand? marka ninkaas gabadha laga dhaho oo tukada Basadirna waxa way horta waxaan ugu soo dhisay Farxaan Diracna muuqaalada oo Basadir ka soo duubo ama muuqaalada oo ka turjumo marka ugu yar yihiin macnaha 500,000 400,000 daawato qaarkood ay milyan daawatay qaarkood 2 milyan daawatay marka Basadir muuqaalada markuu asiga soo sameeyo janaalkiisa saxdan oo soo dhigo oo ay ugu qoran tahay King Bruce waxaas ay ugu qoran tahay markuu soo dhigo 10,000 20,000 markay ugu bantaa 20,000 30,000 daawato
markii muuqaaladiisa qof uu sii turjumayo oo arko milyan ay daawanayso muxuu dareemi karaa sida darteed ninka saas oo Soomaaliya ku keenay sida Farxaan Dirac uu sheegay si lacag uu qabsado macnaha oo inta la qaalo uu soo galo sababtoo ah muuqaaladiisii dadkii loo bandhigay oo malaayiin qof ay ka daawanayso dad inay taageersiin oo arko sida darteed oo inta ku imaad marka intaas aan ku ekeenayna saaxiibka Masdiir waana salaamayna waxa waay muuqaalkan waxaan rajeynayaa inaad ku raaxaysteen waxaan noo ballan muuqaalkan haddii aad inta nala soo gaartay weli aan subscribe saarin hadda saar subscribe videogan like saar sidoo kale waxaan noo ballan muuqaalkan ku xigo nabadgelyo